kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaan laga socotaan oo warbaahinta Bishaaraga Media oo alaaba kala socotaan wararka iyo barnaamijyada ugu xiisaha badan ku soo dhawaada arrin xiiso badan oo ku saabsan fanaanka Maxamed Bakaal Cirro oo runtii taqaanaan dhammaantiinba oo ahaa fanaan dhulka Soomaaliyeed aad looga yaqaan oo aad loo xiiseeyay heesiisa runtii ahana gudoomiyaha xidigaha geeska ayaa la sheegayaa in arrin la yaab leh oo kala kulmay magaalada Hargeysa maxaa ka jira arrintaasi barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka abwaan caan ah oo aad loo yaqaan oo runtii isaguna ka hadlay arrintan ku saabsan Maxamed Bakaal Cirro iyo magaalada Hargeysa su'aasha isweydiinta lana waxay tahay maxaa ka dhaxeeya Maxamed Bakaal Cirro arrintan uu Hargeysa kala kulmayo hadda ee soo cusboonaatay iyo showgii horaantii laga baajiyay Maxamed BK ee laga baajiyay magaalada Nairobi arrintan ayaa dad badan ay uga hadlayaan qaab kala duwan runtii oo moodo in bulshada iyo baraha bulshada maanta ay aad u haysato ilaa shalay oo arrintani dhacday balse inaga lafteena ayaa si toos ah ama qodo dheer uga hadli doona barnaamijka inta ku guda jiro abwaankan caanka ahaa ayaa ahaa abwaan weersame oo arrintan isaguna mar dhaweyd oo maanta wax laga weydiiyay si faahfaahsan uga hadlay weerarka loo geystay Maxamed Bakaal Cirro iyo sidoo kale qaybo kamid ah xubnaha xidigaha geeska sad la socotaan ba horaantii bishan fanaanka caanka ah ee Maxamed BK isagana alaaba heesiisa la xiiseeyo oo qof walba oo Maxamed BK maqlaay heesti nolosha cusub soo dhaweey ay dhagiisa ku soo dhacayso ayaa safar ku tagay magaalada Nairobi oo runtii doonaya markaa inuu ku qabsado show caalami ah oo markaas halka uu hirgala balse arrimo la xiriira maamulka iyo laamaha u qaabilsan showyada magaalada Nairobi ayay khilaaf soo yar kala dhaxgalay fanaanka halkaas ayuu showgiisu runtii ku baaqday dad ayaa si kala duwan u fasiraya oo fanaaniin kamid yihiin oo runtii kamid yihiin dad baraha bulshada caanka ayaa qaab kala duwan arrintaasi u fasiray oo qaarkood ay ku sheegeen arrimo qabiil balse waxba kama jiraan aha warbaahinta Bishaaraga Media oo arrintaasi xaqiiq badan raadisay ayaa soo cadeysay walow aan barnaamij ku soo qaadanin arrimaha ku saabsan BK iyo showgiisa Nairobi balse xogo hoose oo xaqiiqo ah oo helay dad badan ayaa qaab kala duwan u dhigay balse arrintan BK iyo qabiil runtii shuqul iskuma laha markii la yiraahdo magaalada Nairobi balse dadka qaar ayaa qaab kala duwan u sheegay oo qabiil iyo waxyaalo la mid ah ku sheegay arrintaasi qabiil ma ahayn runtii haddaan mar kale in ka dhawaajino ama aan idin sheegno waxay ku saabsanayd arrimo la xiriira maamulka laamaha showyada ee u qaabilsan magaalada Nairobi iyo fanaanka ayuu arrimo runtii isfahan waa soo kala dhaxgalay halkaas ayuuna showgii BK ku baaqday fanaankuna markii uu ku laabtay magaalada Hargeysa arrimo runtii ay kamid tahay magaalada Muqdisho iska maqnaato oo runtii dad badan ay ka xumaadeen dadna ay soo dhaweeyeen baa ka soo yeeray fanaanka balse sidaan xaqiijinay qabiil ama maamul ama siyaasi wax saameynaya oo qabiil iyo baaqashada Maxamed BK ee Nairobi ay isku leeyihiin ma jirto runtii markii si ahaan ama xaqiiq ahaan ama warbaahin ahaan aan runtii mas'uulin ka nahay inaan xaqiiqda iyo waxa jira marba idin soo gudbino inta kasoo waan soo laabana mowduuceena oo ku saabsan Maxamed Bakaal Cirro oo lagu weeraray magaalada Hargeysa runtii dad badan baa qaab kala duwan u fasiray kulay maamul ama shakhsiyaad markaasi way noqon karaan isaga wax u qaba laakiin dadku inta badan waxay isla dhaxmarayaan oraha qabiil baa loo cunsuriyay ama kama soo jeedid Hargeysa arrimahaas ayaa laga hadlay ama abwaan weersame uu ka dhawaajiyay bal ku soo dhawaada wareysi kooban oo la yeeshay abwaanka caanka ah Soomaaliyeed abwaan weersame oo runtii ka hadlay arrintaasi wareysi kadib ayaan soo laaban doonaa Cirro Bakaal wan fanaan oo reer Hargeysa oo reer Soomaaliland in loo hanjabo wax aan dhaqankeena ku jiri jirin iyo milgaha dadka xorta ayaa magaalada ka bax waxa horta la yaabo leh in isagoo kale magaalada ka bax lagu yiraahdo oo isagoo halkan uu ku dhashay waa reer Hargeysa magaalo cid ka saari karta ma jirto nin halkan kale hina ma jiro ninka deesaas lehina wuxuu noqonayaa kulay nin aan deemalaha isagoo soo jeeda riyoonaya dhaqanada noocaasi ee lagu soo kordhaya iyagana in wax laga qabto ayaa qurux badan marka idinka laftiina waxa la leeyahay waa iska sasteenune miyaa hadda haysan cadaymo rasmiya ma been buu sheegaya marka hadduu qof wax la soo gaarsiiyo oo ku yimaado soo markuu inaad cabashadiisa isaga ka qorto maaha
dee wixii baaritaanna dee dawladda u xille in iyadu baaritaankaa samayso ilan iyada ammaankii dadka xil ka saaran yahay laakiin se adeer dad iska sasaa oo marka dadka dee caqligooda lacaayaa la odhanaya hebel wuu iska sasay uun ma ninuunba iska sasaa maalintaasi qofkii wax loo geystay dacwoonaya miyaan iminkana la sii caaya inaanay cay aanay iyadiina hayn dee waa cay kala tani wuu iska sasaybaaba dee cay kala ayn adeer taasuna dee dadka ma qabatay yaynaan dee qofka nabarka yaan cay loogu sii darin dee arrintan maxaa keenay baad is leedahay arrinta waxa keenay ninba sibay la noqon kartaa aniga waxay ila tahay waxa arrinta keenaya waxa weeyaan baryahan fanka uu siyaasadaysan yahay fankana siyaasadda laga saaray nadir intaas iga talaa fanka yaynaan siyaasadaynin nimanka fanaaniintii waa niman masaakiina waa niman goba niman waxyaabahan dadku isku haystaan shaqo kule maaha war in maadeeyaal nimankaasu aynu sidooda isaga dayno oo qudhunkeenna kale magaalooyinka lagu laaqanayo inaan la dhexgelin fanka aynu ka ilaalinno waxuuna xor ha noqdaan intaasna u oranaya laftiinu inaydaan uruursanayn oo idinka laftiinu aad haysaan soo meesha kama muuqato yaa isayeen adan ku weydiiyay bal waa ay cid isaysa anu horta dee fanaaniinta ma dhex galo laakiin se haddana bar ka mid aan hay dee fanaanin oo dee waa saxaabtaydiin wax ishayn la yidhaha ma jirta haddaan dee imika la samaynayn imika laakiin se la abaabulaya malaa dee ishayn dawladdana waxaa xil ka saaran yahay imika dhacdadaasu dhacday laakiin se dabagelkeedii iyo ciddii waxaa samaysay wax alla waxaasoo dhan dee dawladda mas-uuliyaddeeda yeelanayso iyadu inay baadho oo ay keenta ay tahay dadkaasu laakiinse sheekadaasi hadda iyadoo halkaa kaga daba hadho dee dawladdu inay iyadu amnigii dayacday ayay u ekaanaysaa waayo hadduu qof intuu hanjabo ka odhan kara magaalada ka baxa qof weliba dee reer Hargeysa magaalada u dhashay in lagu yidhaahdo waxa la cunsuriyadeeyo waxaasniyo waa wax aan milgaha iyo dhaqanka dadka gubtaan ku jirin isagana cid ka saari kartaa ma jirto xitaa xagtin cid saa u gaarsiin kartaa jirto waan filayaa daawadayaal inaad ka bogateen waraysigaas la yeeshay abwaanka uu waxyaalo badan inku ifiyey runtii mar kale haddaan usoo laabano mawduuceena oo ku saabsan arrimahan xasaasiga ah hadda ay taagan runtii ma filayo qudhiina arrimahaas iyo arrimo lamid inay ka suuroobaan sida inta badan dadka Soomaaliyeed waxyaalaha lagu yaqaano waa dadka aynaan qabyaaladina runtii waxaa kamid ahaa sida fanaaniinta iyo dadka lamidka ahaa culimada kamid ahaa sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadka madaxda oo kale alaaba dad waxyaalaha mudan in qabiil lagu xusho ama qabiil lagu taageero ama qabiil ma aha laakiin dadka Soomaaliyeed waa laga yaabaa meelaha qaar inay ka jiraan dhamaantiinba waan ka raali gelinaynaa arrimahan dhacaya waana ka xunnahay runtii dadka Soomaaliyeed inay waxyaalaha qaar mararka qaar ay la kulmaan halkaad kala socoteen barnaamijka daawadayaal waa Bishaaraga Media oo alaaba kala socotaan wararkii barnaamijyada ugu xiisaha badan fadlan subscribe saara sidoo kale ha iloobina inaad la socotaan barnaamijyada dambe xiisaha badan sidaas iyo nabadgelyo